qoladii kristanka ahayd waxay leeyihiin hore wax bannaan maaha hadduu kristanku halkaa ka taagan yahay innagu markaa inaynu dabaaldegnaa oo krismasnimo u dabaaldegnaa ma bannaanta su-aashu waa taas inaynu innagoo muslimi dabaaldegno oo u dabaaldegno ciid wathaniya oo wadaadadii kristanka qaybo badanoo ka mida ay leeyihin waa ciid wathaniye ciid xataa ciise dhashay ma aha oo si kale haddaynu u nidhaahno been abuura waan ahayn maalintii ciise dhashay siday u badan yihiin warka ay qorayaan maxaa loo dabaaldegayaa markaa ma waxaad dabaaldegaysaa maalin ay qaar intay been abuureen oo bidco agtooda ka ah haddana ay leeyihiin ilaah baa dhashay iyadoo ilaahay leeyahy waqaaluu ittakhada araxmaanu walada laqad ji'tum shay-an idda takaadu asamaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru اljibaalu hadda an dacuu lilraxmaani walada wamaa yanbagii lilraxmaan an yattakhida walada xadiidka saxiixaana uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi aadanuhu ina aadan wuu icaayaa waanu ibeeniyaa wuu icaayaayo wuxuu leeyahay inan buu dhalay anigoo ah buu ilaahay leeyahay allahu laxadu samad waxna dhalin layna dhalin waa ibeeniyaa oo wuxuu leeyahay soo celin maayo iyadoo aan abuurkii hore abuurka dambe igaga adkay haddaba ayuha alxibba sharci ahaan markaan eegno ciidda waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid yihiin cibaadaadkay ku jirtaa sida manaasigta kale qiblada salaada soonka iyo wixii la mida ilaahayna wuxuu qur-aanku leeyay likulli ummatin jacalnaa mansakan hum naasikuun cid walba wakhti ayaanu u samaynay ay cibaadadooda la yimaadaan likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون حنا إلهي القرآن ككولي والذين لا يشهدون الزور كوا آن حاضرين زورك مفسرين بدن بوحي كفسرين أيتي عيدها مشركين لا يشهدون بالزور هذه اللي دعوا كوان مرخاتبين لا شيء لكن ما دام أنبأ لقوا قدبين بيلين وحي تلماميسا inay tahay kuwa aan xaadirayna ka qayb galaynin ciid gaaleeda ee nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo tilmaamayaa markuu yimi wuxuu arkay carabtii oo ciidaysa waa maxay bay yidhi waxay idhaahdeen waa ciid aanu jaahiliyadeedii ciidi jirnay ansaartii wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu idinku beddelay mid idinka khayr badan ciid aladxaa iyo ciid alfitri baa laydinku beddelay caaisha waxay leedahay guriga ayuu soo galay abubakar ayaa noo soo galay iyadoo laba jaariyadood heesayaan ciiddii ciidala muslimiinta walaysataa bimuqaniyatayn bay leedahay laba heesana may ahayn horta erayga hees markaa maqashaan inta badan dadka waxaa ku soo dhacaya muusigii iyo waxaan la tumayo iyo boodboodka in waxaan heestaa lama yidhaahdo af soomaaliya hees haddaad maqasho waxaa la yidhaha hees tii xoolaa lagu raaci jiray tii ceelka lagaga waraabin jiray tii haanta lagu luli jiray tii ilmaa yar loogu heesi jiray hees af soomaaliga kuma jirto wax muusig la yidhaahda muusigga gaalkuu la socday bigilkii ugu horreeye la tumo hindidii la socotay ingiriiska wadatay cuudkii ugu horreeye la garaacana kuwii cadan ka yimi baa la yimi dhaqan soomaaliyeed ma aha wax la tumaa haddii laga maarmi waayo qolaad durbaan haysatay haddii laga maarmi waayo laakiin kuma jiro dhaqanka soomaalida waxaan la yidhaahdo idan haddaad hees maqasho midhaha la tirinayaa laga warramaya af soomaaliga midho wasni leh oo noocaasaa laga warramaya caaisha waxay leedahay markaa labada hablood manay ahayn kuwa heesa abubakar baa wuxuu yidhi abimazmuurin sida riwaayadda muslim tilmaamayso riwaayadda bukhaarina mazaamiir bay sheegaysaa abimazmuuri الshayطaani fii beyti rasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam ma
mizmaar shaytaan baa gurigii nebi maxamed jooga wuxuu nebigu ku yidhi markaa maalin ciideedna waa hediya abaabakar ina likulli qowmin ciida wahada ciiduna idan muslimiintu laba maalmood oo ay farxaan oo hees qaataan oo ba u bannaan waa labada ciidood ama waxa ka soo hadha ina likulli qowmin ciida wahada ciiduna buu nebigu yidhi cid waliba ciid bay leedahay maalin ay faraxdo boodbooddo bay leedahay annaga ciidda iyadu waa tan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walikullin jacalnaa minkum shircatan ومنهاجا نبي عليه الصلاة والسلام ما دام ويريها وهذا عيدنا وحي شيغيسا تكلينا أنا عيد وهاي المسلمين حديث كي هوران تلمامن هنا وحنبي تلمامن إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما وعيدها ضدك كلك وكخير بدن أي إلهي دينكو بدلي عيدي كوي كريستان كان نقضي النصارى لبدا عيدود مدنا ما بنانا دينهان إنه كغيب الله عيد وثنينا ما بنانا عيد كريستان ما بنانا سادر دد النبي وحولي عليه الصلاة والسلام حديث كصحيحين كوي الله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أننا أحكوي دنبيي حق وقتك مركا لقايقو horeeya maalinta qiyaamo oo jannada ugu horgalaya xagga manzilada marka laga eego bayda annahum uutul kitaaba min qablina wa uutiinahu min bacdi hase yeeshee buu nebigu leeyahy iyaga kitaabka hortaayaa la siiyey annagana kadib baana la siiyey fahada yowmuhum aladii farada allahu calayhim faاkhtalafuu fiih waa jumcada buu nebigu leeyahy ciiddoodii la siiyey isku khilaafeena garan waayeen sabti iyo axaditoona may hayne jimcun baa ciida buu nebigu leeyahy ilaahay baana nagu hanuuniyey faannaasu lanaa fiihi tabaca dadku annaga ayay khadam iyo tabac noogu yihinoo nagu daba socdaan buu nebigu leeyahy alyahuudu hadan wanasaara bacda hadin idan inaynu iyaga tabacu noqonnaa ma bannaana jumcadaa ciid inoo ah sabti inooma aha عيد الأضحى يا عيد الفطر با عيد نوء كوذا كلا عيد نوء معها سيدا وقيد أيها الأحبة قال استعلي سنتني قال قد يشضتني دينتكم بنانا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وحان النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم نك داد سوء كيسية أي سوء كيسية واحد دين تان كوبناني واحد يجوا عام كويهين كريسماس يجا بالله كريست باوي وبحنايا سادو غيب غشا والدين ساد دين كلا عيد دو عيده وعبادة ساد عبادة دين كلا وصميسته سيدا وقال أيها الأحبة نبي يقول خالف المشركين والمشركين تخلافة وعقيدة يا دين يا شريعة يا خلافة أعياد وحي كم تهي وحل اسكو خلاف سيء النبي قلنا لي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور وروحا إذن كدقيا بدعة عصبية ماضة فإن شر الأمور محدثاتها بدعة يماده وحا وشرك بدن له محدث وحا هي بدعة كمده وكل محدثة بدعة كستانة محدث شيء كستول سود الرينا وبدعه هدي بدعة مسلم كسود الري حديثك وكدقيو بدعة كريستك وكان كور إلى 25 ديسمبر وبدعة مسيحية وأوثان تيكسون نقليانا وابتداع والله يمادين بدعة مسلم بان لغوه وقلينا ما بدعة كريستان بان مركا لغوه وقلانا يا حاد غريب وأمركا ضدك مسلمين تاسا يسقدر سمين محا حلالة هي محا حارانة وحلميدا عيدها كان نيو يير بالميدا سنة كعصب سنة كان عصبي جانا وريدا لشيغيو ugu horeyn Julius waqtigiisii baa loo dabaaldegay waqtiga ugu horeeya
waa 45 BC ee loo dabaaldego waqtiyadii dhexe looma dabaaldegi jirin waqti dambe dib loo soo celiyay kalendarkani waa kalendar Roman ah kalendar Roman ah Romanisku waa wathaniyiintii hore Juliusna waa boqorkoodii waa ninka bishan July la yiraahdo isku magacaabay boqorkii isaga ka dambeeyay Augustus bisha August la yiraahdo isku magacaabay bilaha kala qayba kamidina ala kulli xaal waxa ay gaala walaaqday hore iyo dib u guurtay sanamadeedii waxeeda u baxsatay maxaad ula dabaaldegaysaa adiga kaaga xidhan maxaa ciid ka dhigay habay yaraatee ciidahaasi wax ay shariicada islaamiga meel kaga leeyihiin ma jiro su'aasha isweydiinta le markaa waxay tahay waxaan oo dhan fikradda ka dambaysa ilaahay wuxuu quraanka inagu leeyahay al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina wardiinta wardiin dhamaystiray baa ilaahayna leeyahay muslimiinta dhibta qabsatay waxa weeyaan multicultural society markay la noolaadeen bulsho noociyad tira badan isugu jirto diimo badan haysta may kala garanin waxay qaadan lahaayeen iyo waxay ka tagi lahaayeen ee wax walba way iska qaateen waxyaabo dadka aynu la wadaagi karnaa jira say culimada qaar badan ay qabaan مثلا ninka gaalka ah haddii ilmo u dhasho waa la tahniyadeyn karaa dhib maaha waqti aan ahayn Christmasyadii waxa kan waa la siin karaa maxaa la yiraahdaa hadiyad waa hadaaya waa laga qaadan karaa ama tahniyada ku saabsan ciidaha ilaahaga inuu dhashaan kuugu tahniyadeynaya dee ma banaana Christmas day inaad ku tahniyadaysaa ma banaana ma banaana wax macsiyo ku jira inaad ku tahniyadayso idan tahniyadka la samaynayo ayaamaha wathaniga ama ayaamaha diimaha kale ee haystaan Christian Yahuud waxay doontaa ha ahaato ma banaana la hadiyad bixinteedaan banaanayn ولا تهنيدان بنانين سا جماهير العلماء وبدن يهين ولا كدقن كيدان بنانين dhaqamada iyo diimuhu waa inay kala socnaadaan waa inaad dhaqan gaaleed ka mid noqonin qof muslima tahay mumayyiz bini aadamku wuu isgumaystaa laakiin waa inaad xor ahaataa oo diintaada aad xor ugu ahaataa waxaan ku soo koobayaa waqtigu uu kooban yahay waa inaynu kala garannaa maxaan qaadan karnaa oo dadka kale ka qaadan karnaa iyo maxayna ka qaadan karin dadku waxa anfacay imka kaba qaato mesela scienceisku anfac buu leeyahay way yaryiin dadka inta ka barata laakiin inta dhafoorada xiirata ama surwaalka daldalooshata ama feedhaha qaawisata ama buruuka soo xidhata ama kabadhaadhe inta xumaha kaga daya waa xumuhu fududiyay saa loo qaataa xumuhu waxba waqti badan uma baahna caawad intaba samayn karaysa ama waxa qiimaha leh waxay u baahan yihiin waqti iyo juhdi iyo dhidid idan wixii la yiri ka qaatana kama qaadano wixii la yiri ha ka qaadanina waynu ka qaadanaa waa aqal foorarka muslimiinta ku dhacay wixii la yiri soo qaatana waa diideen wixii la yiri ha ka qaadanina way ka qaadanayaan idan ayuha alahibba waxaan ku soo koobayaa maalmahan ama wathaniinimaha ku salaysnaadaan ama diimo kale ku salaysnaadaan maalmo muslim iyo diin islaam ku salaysan ma sida awgeed in laga qayb galo sinaba uma banaana sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam